السلام عليكم. موقتاي داودي قارة لاتين أمريكا waxa ku yaala dal isugu jira Afrikaan, Amerikaan, European iyo Asianba. Inkastoo ay percentage ku kala duwan yihiin, balse haddana waxay ka soo kala faraxmeen qaaradahaas. Maanta la joogo dalka sanadlihii waxa uu martigeliyaa in ka badan 1 milyan oo dalxiisayaal ah oo ay sabab u tahay quruxda xeebaha, taalada weyn ee Rio iyo xalfadda sanadlaha ee Carnavalka. haddaba daawade ku soo dhawow dalka caanka ah ee Brazil. dalka Brazil waa mid dhaca qaaradda Koonfur Ameerika, sidoo kalena waxa uu ka mid yahay dalalka Latin America. Brazil waa dalka shanaad ee ugu weyn caalamka, waxaana kaliya ka weyn China, Ruushka, Canada iyo Mareykanka. badka Brazil waxa uu ku fadhiyaa in ka badan 8.5 milyan oo square ah, waana waddanka lixaad ee ugu population-ka badan caalamka, waxaana uu gaarayaa population-kiisa in ka badan 217 milyan, waana waddanka saddexaad ee ugu xadka badan. waxa uuna xad daris ah dawlad leeyahay 10 ka mid ah 12 waddan ee Koonfur Ameerika, marka laga reebo dalalka kale ah Chile iyo Ecuador. wadamada uu xadka leeyahay waxaa ka mid ah Argentina, Uruguay, Peru, Colombia, Venezuela, Suriname, Guyana, Paraguay, Bolivia iyo French Guiana ay Faransiisku leedahay. Brazil waa dalka loogu haray markay ay timaado hibada kubadda cagta, inkastoo aysan u baahnayn sheegitaan, balse waxaa ka soo baxa laacibiinta ugu fiican ee dunida soo maray, waana waddanka keliya yar iyo weynkooda wada ku badaysan. sidaa darteed waxaad arkaysaa inay meel walba ku ciyaarayaan sida xeebta, wadooyinka iyo garoomadaba. dalkan waxa uu martigeliyay 2014 koobkii adduunka, waana waddanka keliya ee ugu hanashada badan koobka adduunka markay timaado. waxayna qaadeen tiro 5 mar ah oo kala ahaa sanadka markuu ahaa 1958, 1962, 1970, 1994 iyo 2002. waxaana keliya ku xiga Jarmalka iyo Talyaaniga oo min 4 haysto. waxa uuna dalkan ka qayb galay dhammaan tartamadii koobka adduunka tan iyo markii la bilaabay in la qabto. Brazil waxay xornimada heshay 1892, waxaana gumaysan jiray Portugiiska. luqadda waddanka looga hadlo waa Portugiis, inkastoo ay kala duwan yihiin in badan mid looga hadlo dalka Brazil iyo tan looga hadlo dalka Portugal. caasimadda Brazil waa Brasilia, waana midda saddexaad ee ugu population-ka badan marka laga yimaado São Paulo iyo Rio de Janeiro oo ah wadnaha iyo lafdhabarta dalka. dadka waddankan ku nool waxay iskugu jiraan 47% caddaan, 43% waana dad caddaan iyo madow ah, 8% waa dad madow ah, inta soo hartina waa Asian. dhulkan 3 meelood hal meel bar waxa uu ku wanaagsan yahay beerashada beeraha, waxaana aadka looga soo saaraa waddankan waxaa ka mid ah qasabka, qamadiga, galleyda iyo burka, waana dalka saddexaad ee ugu dhoofinta badan bunka iyo digirta noocyadeeda kala duwan. sidaa darteed cuntada qaran ee Brazil waxaa lagu magacaabaa feijoada, oo ka kooban digir iyo hilib lo'aad iyo midka doonfaarka. Brazil waxay leedahay 60% kaymo roobaadka caalamka ee Amazon Rainforest. webiyada dalkan mara waxay gaarayaan 10, balse kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah Rio Negro, Brana, San Francisco iyo webiga labaad ee ugu dheer caalamka ee Amazon oo dhererkiisu yahay 6400 kilomitir. waxa uuna maraa bariga ilaa galbeedka laga bilaabo buuraha Peru, waxa uuna sii maraa Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia iyo Brazil, waxa uuna ugu dambeyn ku shubmaa badweynta Atlantika. Brazil waxa ku yaala in ka badan 69 national park, waxaana ka helaysaa xayawaano ay yar tahay in dalxiisayaashu meel kale ku arkaan. xayawaanka qaran ee waddankan waxaa lagu magacaabaa afka qalaad jaguar. waddankan codalisaan waxaa ku yaala in ka badan 2700 oo garoon diyaaradeed, kuwo khaas loo leeyahay iyo kuwo shacbeedba. garoonka diyaaradeed ee ugu weyn waxaa lagu magacaabaa São Paulo Guarulhos International Airport, waxa uu ku yaalaa magaalada São Paulo, waana midka ugu mashquulka badan ee waddanka. calanka waddankan inkastoo marar badan wax laga bedelay, balse midkan waxa uu leeyahay macno badan oo kala duwan. midabka cagaarka waa qiimaha weyn uu leeyahay dalkan, midabka dahabiga, midabka buluugana waa cirka. 27 xidig waxaa loola jeedaa 26 state uu leeyahay dalkani. intaasna waxaan ku soo koobaynaa macluumaadkii ku saabsanaa dalka Brazil.